waxaa deegaanka Soomaalida ka socda jahawareer qas iyo lab siyaasadeed oo ku yimid maamulka Hargeysa ee Cagshar hogaamiyo. Waxay u eg tahay inay marayaan wafaadkii iyo waraaqii ugu dambeeyay kooxda Nairobi laga soo waariday iyaga oo wata boorsooyin afkoodu yaal oo DDS dabadooduna taalo Nairobi oo maran muddo 3 sano ahna buuxsamila ayuu hadda waqtigu ku yimid iyagoo sumcad dilan bahdilan baaba'san oo digada ah lana daala dhacaya moral xumo cilla ciirsila oo xataa shakhsiyaadkii la dhuuqayay hantida ummadu ay kor uga baxeen dadna ma hayaan duruusina u laaban cidhiidhi maskaxeed oo siyaasad xumada BB keentay ayay la tabcaansan yihiin inay dhacdoon boob cad iyo xoolo cirdoonimo ku sifaysan yihiin waxa kugu filan ma jiro mas'uul reerkiisu degan yahay DDS oo 90% mas'uuliyiinta Nairobi laga soo waariday ee naarumacdayga ah hoteello jigjiga ku yaala ay degan yihiin kaliya waxa deegaanka ka yaala boorsada ay garabka ku sitaan ee laptopka ugu jiro maalmahan cirka baa u banaan waxa soo wajahay cabsi badan iyo argagax kadib fashilka aabahooda Abiy iyo BBdiisa ku yimid oo carar taagan waxa cabsida intaas leeg qaska iyo jahawareerka siyaasadeed iyo midka maskaxeedba ku riday iftiinka waqooyiga ka baxay ee guulaha laxaadka leh ku dhaadanaya iyo jabka ku yimid axmaaradii ay aaminsanaayeen inay minilig soo celinayaan ee Abiy hormuudka u ahaa oo ay arkeen in afka ciida loo daray oo dhan walba lagaga adkaaday. Haddaba maamulkan axmaaraysan ee Team Cagshar iyaga oo jabka nidaamkooda dhergeysan gaaray qarsanaya oo iska dhigaya inay weli luga ku taagan yihiin si shacabku u moodo inay awood leeyihiin balse calooshu hurayso ayaa waxay miisaaniyad 27 milyan oo bir ah u shubeen axmaaro ku sugan Addis Ababa oo ay la shaqeynayaan shakhsiyaad xigtada Cagshar ah si loo soo qabto siyaasiyiin isbedel doon ah oo ka aragti duwan mucaaradna ku ah systemkooda balse mucaaradnimada iyo isbedel doonnimadu ka gashay meel aan habboonayn oo Cagshar ka carar oo BB ku carar waa isla meeshii iyo Cagshar ka carar oo ku carar dhowr xubnood oo mas'uuliyiin hore ka soo maray deegaanka oo sanadahan dambe fadhigoodu ahaa Addis Ababa ayay naflacaaladnimadii kula dhaceen cabsi badan oo ay ka qabeen inay BBda laftirkeeda kaga italroonaadaan lama garanayo meel ay geeyeen xubnahaas ay Addis Ababa ka soo afduubteen ilaa iyo hadda. Dhanka kale waxaa khalkhalkan ku abuuray kooxda Nairobi ee DDS taliska ka ah kala shaki ku yimid hay'adaha nabadgelyada iyo furfur ciidanka dhexdiisa ka socda. Waxaa la xaqiijiyay inay qaar ka mid ah saraakiisha difaaca Tigreega ee TDF ee halganka kula jira kooxda Abiy ay la soo xiriireen hay'adaha amniga ee deegaanka iyo saraakiisha ciidanka oo ay gaadheen heshiisyo hoose oo ku saabsan inay afgembi qorshaysan ama dil labadaas midkood ku sameeyaan Mustafa Cagshar, Xuseen Qaasim iyo Maxamed Xaaji Tuur ayaa qorshahan hormuud ka ah. Waxa ku helinaya Maxamed Yare dhammaantood waxay saraakiisha TDF ee ay la xiriireen u ballan qaadeen in haddii ay Mustafa Cagshar akhra ugu shubaan ama afgembiyaan inay mansab iyo maamuus sare siin doonaan kadib marka ay TDF halgankeeda ku guuleysato ee ay gabagabayso. Xuseen Qaasim ayaa loo ballan qaaday inuu noqon doono madaxweynaha DDS ee Mustafa Cagshar ku xiga halka Maxamed Yare farta loogu fiiqay inuu hoggaanka nabadgelyada ee DDS noqon doono. Maxamed Xaaji Tuur laga dhigi doono taliyaha guud ee taliska militariga ee bariga Hararge. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka liyugana waxaa loo calaamadiyay boosas macquul ah mustaqbalka oo ay ku qanceen waase haddii ay ku guuleystaan qorshaha la siiyay. Siyaasaddu saaxiib ina adeer iyo xigta midna ma laha. Golaha kabineega ee DDS ee uu maamulo Mustafa Cagshar ayaa qaarkood diyaar garow ugu jiraan sidii ay u baxsan lahaayeen kadib markay si dhab ah u darseen waaqaca dalku ku jiro. Boofiska Cagshar hadheeyay wuxuu marayaa heer waali ah. 2 habeen ka hor wuxuu bedelay 2 xayl oo ka mid ah ciidanka ilaalada madaxtooyada kadib moobilo lagu arkay xubno ka mid ah ilaaladaas wuxuu ka didayaa xataa hooskiisa waxaa u baxaya filmaan cabsi iyo khaakh ah. Wuxuu bedelay goobihii uu fadhiisan jiray iyo chiefkiiba inkastoo uusan bilahan seexanin habeen walba
waxaa la baadhaa fadhiyada guriga uu joogo ee ciidanku dibad iyo gudaba ilaaliyaan had iyo jeer ee cid kale oo aan isaga ahayn aysan gelin. waxaa 2 jeer toddobaadkan gudihiisa laga bedelay dumarkii cuntada uu sameynayay. gaadiidkii uu ku socon jiray wuu iska bedelay cabsi aawadeed, wuxuuna hadda isticmaalaa xaajiyado kortiri ah. wuxuu ku sugan yahay xaalad ay dhimashadu u dhaanto. silac adduun u dhammaystay. waxaa ugu daran oo uu shakiga ugu badan ka qabaa 10 taleefan oo la daba wado. kama qabto taleefanada hogaamintiisa heer deegaan oo ilaalada ayuu ugu dhiibaa. waraaq iyo wafaad uma hadhin. hadda isaga ayaa hoosta ilaahay ka baryaya inuu aabihii tago xaaladda uu ku nool yahay darteed. haddii uu geesi calool adag noqon lahaa dhibaatadan ma uusan mareen oo dhinac ayuu u dhici lahaa. laakiin fulaynimada ayaa waxaan oo dhan ugu wacan. wuxuuna og yahay xaqiiqada dhibaatooyinka uu ummadda u geystay ee dhaca iyo boobka, bahdilaadda, qabyaaladda, usduuga, xaqiraadda, naca iyo cadaadiska beelaha qaar iyo dulmiga cadifadaysan, beenta, xasadnimada iyo huhaada uu ku caanbaxay. waxaasoo dhan ayaa isu biirsaday iyo weliba bukaan qalbiga ah, cudurro maskaxeed iyo qaar kale. haddii si dhab ah lagaaga sheekeeyo marxaladda uu Mustafa Cagjar maanta ku sugan yahay, adiga ayaa aad u nixi. yaab iyo amakaag ayaa dhafoorada qabsan. shacabka deegaanka qaarkood damanaantooda waxay moodayeen inuu ruux nool meesha joogo, laakiin waxaan u xaqiijinaynaa inay meyd dugsanayaan.